furaleysta la yidhi xoolo iyo caruur iyo wax walba way helaysaan hadda waa astaghfir allah halay sheegayna niyaro Soomaaliyeed oo muslima oo Mareykan joogo shaqaysta oo yidhi maalintii 2,000 astaghfir allah baa sameeyayo wax haba yaraatee nolosheedii soo hortaagaba jiraan hooyaday baan maalintii dambe oo dukaan haysato waxaan ku yidhi hooyo haddaad laftaada astaghfir allah badiso dukaanka uu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu ma baacamirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa la ina baraya asbaab kale aan ahayn asbaabtan maadiga inuu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbus samaawaati inuu labadaba isaga qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isaga dhigay maca dalika isaga ana ka talaabsan kara ولذلك با كراماتك يا معجزاتك يا وحاصو دموا maxay waqaanu kan naqaano laga talaabsanayade karaamadu waa wixii inuu naqaanayo laga talaabsaday ولذلك suuradani waxayna baraysaa marka fitanka dhamaanteed haday fitna diineed tahay iyo haday mid maaltay iyo haday mid cilmi tahay iyo haday mid sulta tahayba in laga talaabsan karo hadaad suuradani manhajkeeda fahamtid oo ah qofka suuradan akhriya adaa lahu nuurun balayri نور بالله إفيا وبين الجمعة والجمعة وكيف سكر بالله إفيا وحين سورة تاني وحي بريسا قفك مسلم كا نلش وحين هذا وحلا قبقه وحين هذا مشكلات كأهرية هذا وحين هذا هي مجدية وقلق بيلاده وحي سورة تاني كبريسا سكينة ده حسلوني ده يطمانين ده يهدات سورة تنخرده إن قلبك كو حصله وأنا وحاس كو أرجح جلنين لا حوق قلبك كو أرجح جلنيا ولا دقالي كابدين أيام بكو أرجح جلنيا ولا دون دانو ما الله بكو أرجح جلني سواء واحد ربيسات رب السماوات والأرض إن كحرنتها وكتحنتي ولذلك أيها الأحبة هذين السنة سورة كور مرنتي بدن بين شيء كرنا ما إن قصص كمدنا ما إن تفصيلي تفاسير تقول لك أنا الله يدين تفصيلنا